dardaaranka nabiga sallallahu alayhi wasallam markii ugu dambaysay ee naftu ay ka sii baxaysay oo sakaraatul mawt ku haya wuxuu ku celcelinayay as-salaata as-salaah wama malakat aymanukum salaada ayuu oranayay nabigu alayhi salatu wasalam amiirul mu'miniin Umar ibn al-Khattab asagoo dhiigu ka qubanahayo oo naftu ay ka sii baxayso ayuu wuxuu oranayay la hadda fil islam liman taraka as-salaah islaamka qayb kuma leh qof salaada ilaahay dayacay oo ka tagay islaamka dhexdiisa wax nasiibay wax qayb kuma leh ilmaha dhalinyarada wiilasha ah oo guryaha noo jooga oo 20 jirada ah 15 jirada ah aabayaalka in badani war kama hayaan bal inuu qaan gaaray inuu san qaan gaarin baa shakiba oga jira hadduu 15 sano cunugaagu gaaray waa qaan gaar haddii calaamadii kale oo qaan gaarka laga helayna waa qaan gaar laakiin ha u qaadan inuu san qaan gaarin bal hubi oo xaqiiqi marka ogaatid inuu qaan gaaray waa inaad ogaataa meesha uu ku tukanayo masaajidka waa inuu ku raacaa masaajidda fiiriya dadka yimaada waxay u badan yihiin dad waaweyn oo reer leh ayaa masaajidda salaada subxiga waliba bidaat dadkan oo dhan oo aabayaalka waaweyn ah gablan ma wada aha ilmaha awlaad bay leeyihiin ilmahooduna saqiira ma wada aha mana wada maqno oo dalkay joogaan maxay u soo raaci waayeen aabaha ma taqaanaa asaga ayaa wuxuu rabaa markuu salaada subxiga tukada ka bacdi intuu u tago haweenka markuu kicinayo ayaga waaweyn oo qaangaarada inuu kiciyo rabo iyo salaada tukada wariya ka kac salaada tukada wuxuu isku mustawa ka dhigayaa hooyada oo ay u fadli badan tahay guriga inay ku tukato oo ay tahay guriga inay ku tukato iyo wiilkii qaangaarka ahaa oo ay ahayd asaga inuu soo raaco ayuu aabanimo iyo shafaqo iyo daqnasho u daqnanayo wuxuu leeyahay saacadan ha kicine iska daa xoogaa si fiican ha u seexde ha dhibine marka soo tukati kici amaanadii waa dayacday meesha adigu aad ku tukanaysid baa la rabaa wiilkaaguna inuu yimaado oo uu ku tukada la rabaa tarbiyadaas way inaga maqan tahay waa inaan dib ugu laabanaa